soo dhawaada asxaabtida khayriga walaalkiin Aaron Yuusuf. Maanta fiidiyogan wuxuu ku saabsan yahay ninkii loogu magac daray boqorka jiimka. Waxaan laga yaabaa dhalinyaro badan inay ninkaa meel ku arkeen, dhalinyaro badanna ay yaqaanaan dadka jiimka waqti badan kusoo jiray. Ninkaan waxaa magaciisa way yaqaanaan. Ninkaas nin kale maahan, waa ninka hadda sawirkiisa idiin muuqdo, Ronnie Coleman. maanta waxaan rabaa inaad taariikhdiisa oo kooban ila wadaago. waxaa kaa codsanaya haddii tahay markii ugu horeysay oo janaalkiina soo booqanaysid inaad subscribe noo saartid, sidoo kale fiidiyogan aad sii sheergaraysid si dhalinyarada badanaa ee ninkan taariikhdiisa ay wax u ogaadaan, maadaama uu yahay ninka magac fiican ka sameeyey tartankan Mr Olympic ama tartanka abaalmarinta ninka adduunka ugu muuqaal weyn ama adduunka ugu dhisan. haddaan ninkan taariikhdiisa oo kooban idinka waramo, ninkan wuxuu dhashay Ronnie Coleman, magaciisu saddex maaha, Ronnie Yana Coleman. wuxuu dhashay May 13 May 1965. wuxuu ku dhashay wadanka Mareykanka, magaalo kamid ah waana American Black. miisaankiisa waxaa lagu qiyaasay 136 kiilo ilaa 143 kiilo. halka dhererkiisuna uu yahay 1.8 sentimitir. ninkan tartanka Mr Olympic ama tartanka dadka adduunka ugu dhisan wuxuu waqti badan kusoo jiray sidaan ka warqabno. wuxuuna kusoo dhex jiray 1990 ilaa 2007. intaas u tartamayay, wuxuuna ka haystaa 8 sano oo xiriir ah, laga bilaabo 1998 ilaa 2007 oo ka haystaa ninka adduunka ugu dhisan. sidoo kale wuxuu haystaa 26 koob oo ku qaaday tartankaas Mr Olympic, marar badan oo kasoo muuqday. ninkan taariikhdiisa hadda kaga waramo, ninkan waxaa lagu naaneysay boqorka jiimka. waxaa lagu baxshay, waxaa lahay ninkii taariikhda soo mara waa Mr Olympic. waxaa la aasaasay 1965 la aasaasay 18 December 1965. magacaan Mr Olympic loo baxshay. tartankan wuxuu asaga ahmiyad weyn ugu leeyahay. wuxuu dhashay asaga 1964 saa hore inta soo sheegay 13 May. tartankan hadda uu 8 bilood oo ka haysto Mr Olympic leh waxaa la aasaasay 1965. markaas waxay la mid tahay asoo hal sano jiro tartanka la bilaabay. saasay taan ninka magac weyn ka sameeyey. abid ninkii ugu miisaan culus qaadka badnaa uu soo noqday oo tartanka soo maro. dadkana waxaa waaye tixgelin weyn ay u hayaan ninkan magac weyn oo ka sameeyey tartankan. saasay taa marka dadka asaga la tartami jiray waxaa kamid ahay jeekan oo saaxiib isku dhow ahaayeen. tartankan oo 8 sano xiriir uu ka qaadayay, waa ragga garbiisa taagnaa uu ka qaaday 8 sano xiriirka waaye. ninkan marka hadda xaaladiisa waaye, waxaa laga yaabaa marka dhalinyaro badan inay arkeen ninkan asoo ku socdo gaariga curyaamada ama biraha ay ku boodaan dadka naafada ah. marka ninkan dhaawac xuna soo gaaray. dhaawacaasna waxaa kalifay miisaan oo saaid oo qaadi jiray. marka laf dhabarta aad tarartay, lafta dhabarka ah kala baxday. deadlift sida hadda la sheegay maruu wareysi bixinayay, waxaa la sheegay in miisaan culus oo deadlift uu qaaday dhabarka wax ka gaareen 3 qalliin oo waaweyn oo maray. 3 qalliin sida wareysi ku sheegay wuxuu dhahay waxaa iga baxday halkii qalliin 300,000 ilaa 500,000. marka isku celcelis waxay noqotay waxaa ku baxday $2 milyan. marka mar wareysi uu bixinayna waxaa lahay ma laga yaabo inaad gaariga ka kacdid oo lugahaada ku socotid maadaama dhaawac xun uu soo gaaray oo halis ah. wuxuu yidhi aniga makinii jabaa yiri, jimicsigan waa sii wadi doonaa. inaad
inaan joojinaan ilamahan maadaama aan waxaan hubigay oo ahay. marka dhakhaatiirta waxay iga dhigeen inuu miisaan ku laabto. marka sidaan ajigay ninkan hadda wuu iska dhaafay miisaankii cuslaa, wuxuuna qaaday miisaano yar. inkastoo hadda uu kusoo aruuray youtube iyo inuu reaction bixiyo maadaama oo ninka dhaawacna soo gaaray. badanaan fadhiyo ku dhamaysanaan la noloshiisa dadka dhiman. da'diisana waa yarta hadda ninkaana da aragtay, laakiin nin weyna umaleysaan, laakiin 53 jir waaye, 53 sano jiraa. dhaawac weyn oo soo gaaray dartiis wuxuu gaaray heer uu jirkiisii uu duqoobo. waxaa soo gaaray dhaawac weligiis ka kabsadoona. marka waxyaabaha marka waxaa keenaya qofka markuu daroogo isticmaalo, irbado iyo kiniinyaal isticmaalo, waxaa imaanaya inuu qofkii oo miisaanka uu qaada uu iloobo daroogada ku jirta darteed. marka dhalinyarada waxaa uga digaya intaanoo mawduuci ka bixin, waxaa uga digaya dhalinyarada inay iska ilaaliyaan waxyaabaha oo saa'idka xadaafka oo kiniiniyaasha halista ah si qofka dhaawac u gaarin. qofka hadduu jirkiisa quruxsanayo wax yar oo qurxan, waxay kaa fiican tahay inaad dhaawac xun kusoo gaaro oo miisaan qaldan aqaadi. marka Ronnie Coleman waa nin magac weyn ka sameeyey, haddana noloshiisa waxay kusoo aruurtay inuu ku fadhiyo gaariga curyaamada lagu riixo. hadda maruu Dubai booqanayay ninkan gaariga waxaa ugu waday curyaamada. dadkana waxay fadhi kula gelayeen sawirka soo fadhiya sawir la gelayeen sida hadda fiidiyowga ujeediin. marka waxaan inta kusoo gabagabeynayaa taariikhdii boqorka jiimka niga loogu magacdaray Ronnie Coleman. waxaa ka codsanaad ilaa dhamaadka daa ila socotay inaad janaalka subscribe noo saartid. waxaan idinka raali gelinayaa hadduu codkayga idin soo gaari waayo maadaama mikrofon laan jirto. insha allah waqtiyada soo socdo isbedel la sameyn doona hadduu ilaahay yidhi insha allah. waxaana ka codsanayaa inaa igu dhiirigelisid si walaaltinimo soomaalinimo subscribe si aan idinkugu soo gudbiyo dadka magaca ka sameeyey jiimka iyo magaca jimicsi oo dhan. waana mahadsantihiin asxaabteyda qaali.